ogaaday soo ilaaha garabkayga mar walba taagnaa laakiin gabar Soomaaliyeed marna yeelan ka hormaranin sharafteeda shaqo misana lacag taas waa iga dig السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي مقال عصوبي ولا شيء مرسن عبد الله يوتيوب channel كايدا داغوني سو وليس نولشا والله هذا يقول عصوب تاع سبسكرايب هذا هو نور الجو جرت لايك شير كومنت سو هذا وحي فكر كذا وانا كم هسنتين سيد قرخي بدن يا عادل سعودية أمال وجبر سومالية تكون سوا عاصمة دلك سومالية مقدشو وحي شاقة دونتي هو شقب هي شتلك الصومالية خاصة مقدشو كسوان برسنا هي كلا كلامتنا حرين جابله هو إن لقعد صدي إن شرفت هذا يكون بدلته شقب برسوي كذي يعني كهر داعين مقال كهري أمل بايسي كون عديسي إن شقة دلك اللي راسدو قاركود مركي تومك شقة دوليهين شروطا وعاسى لو حيرو إلى دعوة مقال كهوات أمل كله وحده ورت الشخص وانكسيو ده هاي بشين ولا $200 لكن هذا ولي إيمان يجار بحنو إذا محيطة أنا جرب حشيجي سيدا الشخص ولا تنما يسيسه وحنا كدرس محيطة عيني ما أهن مجا إذا صحدا وحيكون نوشهاي مجالة مقدشو iyada iyo aabaheed kaas oo ah waalid waqtigu uu ka hiiliyay wax dhaqaalahana aanan haysan si gabadhiisaan yar ay horumar u gaarto iyadoo ka duuleysa horumarinta nafteeda iyo tan waalidkeeda waxa isku dayday inay shaqo u doonato dhowr xarumood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jaamacado hoteelo iyo shirkado balse arrinta la yaab kale waxay noqotay in gabadhan lagu dirqiyay in baahida shaqo ay hayso darteed inay ku bedelato galmo aan sharci ahayn markii ay ka diidana waxa ay weysay codsigeeda shaqo haddaba ha inooga sheekayso dhacdada koowaad ay la kulantay gabadhan oo aan u qarinay wejigeeda ilaalinta sumcadeeda iyo khatar amni arinta ugu muhiimsan waxa waaye maalin ayaan ka doontay jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya mid ka mid ah waxaan ka doontay shaqo nadaafad ah lagaga sheegay mid ka mid shaqaalooyinka qaybta u fadhiya shaqada dadka siiyo oo aan ka doontay lambarkiis gaar ahaan wuu isiyay oo wuxuu idhaa shaqadu way banaan tahay bishiina waa $200 haddii aad u baahan tahay nadaafadda waa soo gali kartaa waa midaan jaamacadii markaa tagay wuxuu igeeyay jaamacad aysan micnaha oo laga qabanaynin jaamacad laga guuriyo oo wax micnaha yaalino oo dhammaatay oo igeeyay wuxuu idhaa meesha ka shaqeynaysa waa halkan sida loogu shaqeeyaa adhaa meel micnaha oo wada bus waaye oo mar hore laga guuray mana micnaha ilama ah meeshan in shaqaale loogu baahan yahay sidee micnaha qof ma joogin cid la eed aniga asaa joognay anigoo marka cabsanaya ilbaabka galay asiga wuxuu idhaa soo gal waa halkan oo idhaa markaasaan dhahay halkan qof kuma jiro waana meel oo wasakh ah qof oo micnaha mar hor ugu dambeysay waa sidee u galaa oo nafsideeda ku aaminaa markaas oo idhaa horta adiga shaqo ma rabtido aad horta soo galba haddaa cabsanaysid micnaha waaba iska bixi kartaabo shaqo kuuma hay okay anigoo sidaas u cabsanayo salii nabiga afka iskaaga qabsada oo ilaahay garabka micnaha garab weydistay oo waan galay kadib markaan galay oo wuxuu idhahay 3 qol wuxuu ii furay oo eber oo baaba oo ii furay kadib oo idhaa waakina meesha ka shaqeynayso waa halkan nadaafadda aad ka qabanaysid okay aan dhaa walaalkayga aada uu mahadsantaa dhaa shaqada maadaama isiisiyaan dhahay okay markaas sidaas u soo baxnay oo aan imaanay qaybtii maxay dhahaan banaanka u soo socono markaas oo ilaahay istaag ay abaayo kale wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiina waa $200 laakiin adiga wali iimaanan iga gaar bixin oo idhaa maxay tahay ana garbaxa sheegay sida dhahay shaqada si walaaltinima iyo siisee waxana ku dareys maxay tahay kadib uu idhaa garbax waa dareemi kartaa codsi iga tahay abaayo ina ii fududeysa rajeynaa codsigeyga ina ii sii sheegtay soo kama fiicnaa dhaa codsigaaga haddii lacagta ayaa dhahay diyaar waa markaa shaqada bilaabo bish ugu horeyso intaa ii soo raadisay waa ku jira waa ku siinayaa markaasoo idhahay ma aho dhaa lacag inaadan lacag haysan waa ujeedaa laakiin wax muhiim ah haysa waxas muhiimka ka codsanaya ina isii sidoo idhaa waan dareemi kartaa okay haddii sidaas taa mayaan dhaa maribiyaan dhahay wax muhiimka waa dareemi kartaa wuxuu idhaa maadaama gabar tahay oo
anigana micnaha wiil dhalinyaro aan ahay waxyaala isla lawaankan waa ogtahay u dhahay micnaha waan dareemi kartaa u dhahay kaasi wuxuu ahaa muuqaalkii koowaad ee Amaal taasoo ahayd muuqaal ku taale ah dad badan ay ka xumaadeen kana dhiidiyeen balse maanta waxaan wadaa muuqaalkaasi murugada lahaa muuqaalkii ka dambeeyay ee Amaal aan ka aragnay iyadoo dhoola cadeynaysa faraxsan si sharafna shaqo ku heshay balse yaa idin ka hordhicine ila daawada muuqaalka Amaal oo faraxsan nolol cusub shaqo cusub iyo wajiyo qurux badan ugu soo dhaweeyay wali ma dhamaanin dareenkeeni Soomaalinimada iyo walaalnimada walaalkaaga ku baahan waxa wanaagsan markasta garabkiisa inaad taagnaatid oo aad noqon mid gadaasha laga fiiriyo Nawaal waa waqti uga duwan kii horay u soo maray ee ay ka qaaday naxdinta iyo niyad jabka 2 cisho ka hor waxay ahayd gabar shaqo la'aan ah dhowr shaqo oo ay raadisayna lagu xiray shuruud ah inay ku bedelato jirkeeda laakiin haatan waxay dadkan oo idil u gogol fadhiyaan inay ku soo dhaweeyaan shaqadeeda cusub iyadoo sharafteedu ay dhowrsan tahay Nawaal Maxamed Abuukar oo wajigeeda laga dheehan karo farxadeeda la xiriirta fursadda shaqo oo ay siiyeen some option ayaa sheegtay inay garowsatay in keli aysan dunidan ku ahayn oo ay jiraan walaalo Soomaaliyeed oo ka damqaday dhibaatada ay u soo gudbisay dhammaan dadka Soomaaliyeed waxayna ka mahadcelisay shaqada la siiyay waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Som oo maanta igdoon siisay shaqadeeda sidoo kale waxaan mahadnaqayaa TV-ga shanta Soomaaliyeed iyo walaalkeyga Maxamed Jino oo maanta ilaa iyo arintan igu dhacday garabkeyga taagnaa soo marna iiga ka tagin aadan ugu mahadcelinaa walaalkeyga dhammaan waxa u sii mahadcelinaya TV-ga shanta Soomaaliyeed mar labaad aad maamulahooda dhammaan inta ka wada shaqeyso waxa dhahayaa mahadsantiin dhamaatiina aad iyo aad waxaan fariin u dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel waliba joogaan أنا وحبي يوم مدعين الحمد لله لكن واكبت باذي سو إلها قرب كي جمر واللي بتاكنا لكن قبل الصوماليات مرنا ينا كهر مرنين شرفت هذا الشقة مثلا العك تاسو يجد جنين munaasabadan oo ujeedada laga leeyahay ay tahay in gabadhan lagu soo dhaweeyo ayaa waxa ka qayb galay madax ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxayna ka dhacday xarunta dhalinyarada ee gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa si carale uga hadashay in hablaha lagu xujeeyo inay jirkooda ku bedeshaan shaqo waxa ayna bogaadisay Nawaal waxa hadda ugu haray oo raadadka ugu dambeeyo ah dadkana la rabo inay ku baraarugaan haddaan dalkan muqaadaraadka laga joojin haddaan la dhisin ciidankii maaragtay barnaamijkan shaqada ku lahaa oo bono kastumo anshaxa lagula dagaalamin haddayna dadka mas'uuliyiinta ee xafiisyada jooga iyo hantiilayaasha hodheelada jooga aynan ogaanin shaqaalaha ay qaadanayaan inuu yahay mid saliima qatar badan ay ku dhacayaan gabdhaheena taas marka waxaan leeyahay waa mas'uuliyad wadareed noo wada taala in gabdhaha maaragtay la ilaaliyo sharaftooda iyo karaamadooda gabar yar oo 19 jir waa dareemi kartaan hooyadeedii aabeed qoys dan yar ka dhalatay rabta inay waaga markuu bariyo ay ku adagtahay inay waxbarashadeedii sii wadato laakiin bal istiri reerka u shaqo tag oo maanta adaa reerka u hana qaaday cid u shaqeeyo xoogaaga ugu shaqeeyo oo rabta inay qoyska wax ka bedesho markay goobta shaqada tagta hadii la yiraahdo maxaad iigu bedelay waa wax aad looga xumaado waxaan leenahay marka qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed arintan ha ka dhiidhiyo dabcan waxaan rajaynayaa in madaxda qarankana ay gaari doonto waayo sidaan u daawanayaan waxaan rajaynayaa in gabadhan qolada maaragtay hay-adan hadda qaadatana waxna ay baraan ayaduna ay shaqaysato waxyaabaha ilaahay nagu xisaabtamayna tana kamida marka telefishinka shanta TV aan leeyahay aniga oo shanta qaaradooda dadka Soomaaliyeed ka hadla ay daawadaan uguna daada yaraan leeyahay warbaahintana mardhow ku soo biiray laakiin shaqooyinka ay qabanayaan ka duwan yihiin kuwa kale dabcan mawduuca hadda caawan u gol joognana ku dhawaad 1 milyan oo qof 500 haday kor u dhaafto iska 1 milyan xilligan waa laga yaabaa inay ku dhowdahay oo Soomaaliya ayaa daawatay kilibka meesha hadda aan u fadhino wariye Maxamed Yaxya Jinow oo soo bandhigay sheekadan wuxuu qudhiisa ka hor muujiyay kulankan sida ay dow u tahay in laga hadlo xuquuqda gabdhaha marka
ugu dambeyn waxay go'aansatay iyadoo gabar ah 19 sano jir ah inay arintaas ka soo horjeesato tan igu kaliftana waxay ahayd inaan warbixintan soo bandhigo arimahaasi oo ah mid magaalada ka jirta waxaan hubaa inay ka jirto xafiisyo badan oo anigoo kale saareen dhowr xafiis ayaa arintan ay ka jirta laakiin dhinaca dawladda iyo dhinaca xafiisyada kale gaarka loo leeyahay ay ka jirta farmashiya ugu yar way jirta marka laakiin markii aan arintan u dhabagalnay waxaa ilaahay sahlay in gabadhan waxaa jiro dad badan oo cabsanaya marka ay arintaas aan baahi kadib ila soo xiriiro dhahayo messengerka aniga sidaas ay ugu dhacday gabar waxaa jirta boosaaso joogta oo tiri haddaad soo gaarto xagga waliba waxaan shaacinayaa xafiiska arimahaas ugu sameeyay marka waxaan jeclahay mar inaan xagga tagi doono si aan warbixintaas u soo diyaariyo kullay qofkee marka saameey doonto isaga aaba dhehaysa mas-uuliyiintii kale ee halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah Basma Caamir gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir waxay bogaadisay talaabadan ay qaadeen dhalinyaradan Soomaaliyeed oo ay ku shaqaaleysiiyeen gabar da'yar ah oo shaqo doon ah dhibaato walba qof loo geystana in isla xisaabtan uu jiro shalay haduusan jirin isla xisaabtan maanta isla xisaabtan ayaa jiro in loo dul qaadan doonin dhibaato qof bini aadan in la dulmiyo haddana ay gabarta gabar waa meesha kaliya ee qofka bini aadanka gabadha waa dareemi kartiin sidii u tahay in loo ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala karaamadeeyay ee dumarka suurta nisaa lagu karaameeyay in rasuulka kaleey salaam la karaameeyay marka annaga karaamadaas intaas ay tahaysano in qof bini aadan oo bashar ah inuu ku xadgudbo diinta islaamka ayaa ogoleen waxaan leenahay diinta islaamka in lagu dhaqmo islaamnimada in la xoojiyo wadannimada in la xoojiyo dhiigga walaaltinimo in la xoojiyo aadaan u soo dhaweynaa waa idinkaga mahadcelinaa sidaad ugu istaagteen dhexda ugu xirateen kan xun dhibaatada uu sameeyay wiilka qaldan wuxuu sameeyay kan wiil kale oo dhaqaayo oo asaga ka wanaagsan oo ka dhiig badan inay gabdhaha Soomaaliyeed ay haystaan waa dareemi karaa wiilasheena inaysan u dul qaadanin gabar in la dulmiyo wiilasha Soomaaliyeed dhiigga ay leeyihiin qof walba marka waa idinkaga mahadcelinaa wada shaqaynta fiican iyo wanaaga Cabdinuur Cabduqaadir Maxamed waa maamulaha shirkadda Som Option oo ay nawaal shaqaaleysiiyay sababtaan u daawadan waxa aniga gabdho badan ay la dhashay oo xaqiiqatan reerkayga wuxuu ku kulmay gabdho aad u fara badan waan ka weynahay waan soo koriyay waxay ugu abuurtay marka dareen aad u xun oo aysan dadka kala qabin kabacdi waxaan go'aansaday waxaan aad u raadiyay TV-ga markaas agaasimaha wuxuu ku maqnaay magaalada Nairobi ana casuumay waxaan ku yiraahday how videogaas aad u mahadsantiin muuqaalkaas aad aan uga helay waxaan jeclaan lahay in aad balxamar igu timaado si aan arinta gabadhaas aan sidii dhibliga aan u ogaano waxa dhabta ah jira agaasimaha qaar Allah siiyo wuu iga aqbalay markuu iga aqbalay xamar u yimid waxaan haddana mar labaad la kulannay wiilkii macluumaadka sameeyay wariyihii macluumaadkan sameeyay wariyihii haddana kulannay sheekadu iga sheekeeyay gabadhii sideen haddana ku kulannay waatan hadda aan annaga u ogolaanay annaga waxaan leenahay gaar ahaan waxaan agaasimo ka ahay ama maamulo ka ahay Som Option Academy oo lagu barto horumarinta dhaqaalaha iyo kobcintooda macadka marka waxaan go'aan ku gaarnay gabadha inaan wax barno shaqana siino qiimo markaasi loo sheegay aan xoogaa uga roonaano maadaama ay ahayd qof dhibana ayadana waxaan go'aansanay inaan bal qiimahaas qiimo ka duwan si naxariis leh ehelnimada walaalnimada inaan aydan u siino ugu dambeyn shahaada sharaf ayaa la guddoonsiiyay telefishinka 5 Somali TV oo lagu abaalmariyay kaalintiisii uu ka qaatay soo bandhigida sheekada Nawaal agaasimaha guud ee telefishinka Fuad Cabdi ayaa ka hadlay annaguna waxa waaye waa ku faraxsanahay warbixintii Nawaal muuqaalkeedii sida ku daawateen iyadoo sharafteedu dhowrsan tahay ayay maanta shaqo ka heshay waxaana shaqo siiyay Som Option Academy iyadoo shaqana siiyeen markaasna ku sii saacidaya inay iyadoo shaqaynayso wax barato waliba waxa ka sii farxad badan lacagta ay u sheegeen dadkii sharafteeda shaqo inay ku bedelato rabay lacag ka fiican inay ku shaqay doonto wax barashana u dhowr tahay waxaana ka garan karnaa wili wanaagsan inuu dalkeena ku sugan yahay shanta faroodna Ilaahay muusimin dad xun iyo dad wanaagsan markasta aad la kulanto qof xun ha fiirinin waxa laga yaabaa qof wanaagsan inuu kaaga dabo maro
markastana ka digtoonaada shaqo inaan ku badaratin sharaftiina dumarkeeniyow intaan muuqaalkan lamida ku kulmayno waa aniga oo walaashin warsan cabdulah oo idinkaga tegaya sidaa ay nabadgelyo gabdhahena lama gaara goobtiga dheh garadiyo caqli allah ku galaday kuwa gada garowiya gaalkacayo garbahararey ilaa gaarisa gabdhahena lama gaara goob weeyaan garadiyo caqli allah ku galaday kuwa gada garowiya gaalkacayo garbahararey ilaa gaarisa